dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay kuu arkaan inaad tahay qof wanaagsan oo haliyayo ilaahay ka cabsanaya. qaarkood waxaa laga yaabaa inay kuu arkaan inaad tahay mujrim. qaarkood si kale inay ku arkaan baa laga yaabaa. laakiin muhiimaddu waxa weeye naftaada adaa garanaya. sirta keliya ee kugu dhex jirta waxa weeye oo adiga qof aan ahayn uusan ogeyn waxa weeye calaaqada iyo xiriirka la leedahay rabbiga. dadka ku ammaanaya waxba ha ku kadsoomin. kuwa ku caayaya ku dhaawacayana waxba yaysa ku dhibin. ilaahay wuxuu yidhi bal il insaanu calaa nafsihi basiira. qofka naftiisa asagaa ka warqaba waxay tahay. haddaad xun tahay lagu ammaano ammaanta waxba kuu qaban mayso. haddaad fiican tahay lagu dhaawaco wax lagaa sheegan taasi wax kaa dhimi mayso. daacada iyo macsida waxa u dhexeeya ee khatarta ah waxa weeye adigu ma ogid waqtiga adduunkaad dhaafaysid maxaad ku khatiman doontaa noloshaada garan maysid. ee daacada samee adoo ilaahay darti u samaynaya. wanaagga dheeraadka samee adoo ilaahay ugu dhowaanaya. adiga weeye waxa u baahinimo badan daacada. rabbiga qani ayuu ka yahay. hamigaada ha ka yeelin dadka inay ku jeclaadaan adiga. dadka qulubtooda waa isbedbedelaysaa. maantuu ku jeclaanayaa birri buu ku nacayaa. maantuu ku necabyaa birri buu ku jeclaanayaa. murugadaada iyo hamigaada sare ha ahaado. sidee buu kuu jeclaan karaa rabbigii dadkan lahaa? hadduu ilaahay ku jeclaado ilaahay asagaa qulubta dadka kuu gelinaya inay ku jeclaadaan. xaaraamtu xaaraan bay ahaan walow dadka dhammaan ha sameeyeen. laakiin mabaadidaada iyo karaamadaada ha ka tanaasulin. waayo keligaa baa lagu xisaabinayaa. dadkiibaa halkaa u batay. dadkiibaa ku wada daatay. dadkiibaa samaynayaad maqlaysaa dad dhahaya markay xumaantii la yihahda ma iska daysaan. wuxuu ku leeyahay dee meeshay ka socotaa waxba kaama gelin. waayo keliga ayaa lagu xisaabinayaa. mabaadidaada iyo qiyamkaada islaamnimadaada ha ka tanaasulin. toosnow sida ilaahay kuu amray u toosnow. ee adigu sidaad jeceshahay ma ahan xasanaad kuu gooniyo ilaahay mooyaane cid kale ayso kula ogeynna samayso. waayo dembiyada oo lala dhuunto waa halaag. kadaalika xasanaadkii wanaagga oo lala dhuunto waxbay badbaadiyaan. ha ku mashquulin hoolalka waaweyn ee quruxsan. arooskayga kaas ha lagu qabto. xafladayda ka ha lagu qabto. halkaasanu ku shirno. waayo shirkii ugu weynaa taariikhda geed hoostii ayuu ka dhacay. ilaahay baa yidhi laqad radia allaahu cani ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajara. mid ka mid a culimmada islaamka ayaa wuxuu yidhi haddaan ilaahay shay weydiisto oo isiiyo hal mar baan farxaa. haddaan weydiisto uusa isiin oo aana helin shaygiina 10 jeer baan farxaa. sababtu waa maxay? waayo middaa hore anaa doortay. middaa dambana allah ii dooray. haddaa waxaad weydiisanaysay aada arag ilaa hadda macnaheedu ma ahan oo ma qalantid. dada waxaa laga yaaba inay yidhahdaan intaasaan ilaahay barye maya wad. waayo ilaahay wuxuu kuu dooray ayaa dhaama waxaad adugaa dooratay. adugaad jeceshay deg hal mar wixii lagu siiyo. laakiin xikmadda ilaahay waxay keensanaysaa waqtiga kugu munaasabo ku wanaagsan ilaahay ku siiyo. ilaahay baa yidhi wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun. rabbigaa ku kalsoonow. muhiimaddu waa intaas. dadka qaarkood waxbaa ku dhaca. guuldar ha soo wajahda adduunyo. hadhihin sababtay waxaan igu dhacayaan waa maxay? dadka qaarkood inay noloshaada soo galaan ama ay ka baxaan. arrintaasoo dhan waa naxariis ilaahay. sannaduhu waa isbedelayaan. salafu saalix raxmatullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwo isku dardaarma kelmadahan ama erayadan oo ka qaalisan dahab iyo dheeman kaste wax kastoo qiimo lagu tilmaamo adduunka. waxa weeye midda ugu horreysa adiga iyo ilaahay xiriirka ka dhexeeya wanaaji. naftaada iyo dadka xiriirka ka dhexeeya waa wanaagsanaanayaa. qofka qarsoonidiisa wanaajiya muuqaalkiisu waa quruxsanaadaa. dad waxaa jira korkana muuqaal quruxsan oo ahlu khayr ka muuqdo noqonaya. laakiin markay keligood noqdaan macaasiday sameeyaan. haddaad markaad keligaa tahay ilaahay ka cabsatid oo xumaanta iska daysid markaad dadka la joogtina ilaahay waa ku asturaya tabaaraka wa tacaala. qofka ka murga arrintiisa aakhiro ilaahay baa arrintiisa aakhiriyo midiisa adduunya ka kaafinaya. khasaarada ugu weyn ee qofka soo wajihi karta waa maxay? jannadaas samaawaadka iyo dhulalka ka weyn boos aad degtid inaad ka weydid. taasaa khasaaro ugu weyn. ee intaad nooshahay qaniimayso oo faa'iidayso. taasi waa zaadkaada iyo sahayda aad u qaadinaysa aakhire. tusaale yar quraarada amba qarshada ama dhaladu way jabtaa. laakiin intay jabayso qaylada ama dhawaaqa ama sharqanta ka yeeraysa waa degdeg. hase yeeshee jajabkii dhulku ku harayaa. qofkii taabtana waa dhaawacaysaa. dadka hadalkay kaa sheegayaan iyo waxyaalaha ay maaragtay kugu been abuuranayaan hadalka waa dhammaanaya. laakiin waxaan khayr ahayn ha filan. aadaab badan buu ilaahay nagu siinayaa suuratulxujaraat oo haddaynu u fiirsanno nafteenna way wanaagsanaan lahayd. wabitaali ummadda iyo sidaan ula dhaqmayn inay wanaagsanaan lahayd. ilaahay wuxuu leeyahay haddaa wax maqashid ha iska qaadan ha iskala boodin. ha laab la kaca iska daa iyo degdega caddayso shayga ma runbaa ma xaqiiqa ah.
qof haddii dhibaata idin dhex marto rabbi wuxuu ku leeyahay is-islaaxiyo iswanaajiya, cadaalad sameeya, qof kale ha ku jeesjeesin, magac xun ha u bixin, naynaas xun ha u bixin, ha dhaawicin, malaha intiisa badan iskaga fogow, jaajuusnimada iyo waxyaalaha iska daayo qofka ceebtiisa inaad raacraacdid, xanta iska daa. rabbi intaasuu ku leeyahay xifdi oo dhegtaada geli, noloshaadu waa wanaagsanaanaysaa. dushaada ma saarna dadka dhammaantood inaad ka qoslisid oo ay raalli kaa noqdaan oo kuu sacabatumaan, laakiin dushaada waxaa ah inaadan qofna dhibin. wixii ugu qiimo badnaa ee isoo gaaray ee aan akhriyey bay ka mid tahay fariintan, sidaa darteed baa adinkana idiisoo gudbiyo walaalayaal. baaraka allahu fiikum wa jacala aljannata mathwaakum. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.